codka yeeraya waa bilowgii xilli farxad taa oo sanadka oo idin la sugayay kadib dadaal iyo shaqo culus. Jawigan wuxuu la mid yahay dabaaldeg xambaarsan farxadda ciidda oo kale. Oktoobar waa taariikhda farxaddan la bilaabayo. Goobtan waxay ku dhex taallaa kumanaan geed oo timireed oo ku yaala magaalada Deir al-Balax ee marinka Gaza. Geedahan timirta ay ku caanbaxday magaalada Deir al-Balax. Beeristeeduna kuma eka magaalada tan, balse waxay ka mid tahay magaalooyinka uu ku badan yahay geedka timirta ah. sanadihii la soo dhaafay waxaa isbedelayay dalagii ka soo go'i jiray Deir al-Balax, balse isma bedelin farxaddii ay bulshadu u haysay xilligan barakaysan. wax soo saarka tirada badan had iyo jeer ma ahan mid ay dan ugu jirto beeraleyda. arrinkan waxaa sababay dhibaatada ay Israa'iil ku hayso reer Falastiin, gaar ahaan beeraleyda. haweenka faraha badan ayaa maalmaha dalagga iskaashada iyagoo timirta u bedelaya macmacaan kala duwan. Cadnaan waa haweeney reer Falastiin ah, waxay gacanta ku haysaa mid ka mid ah marxaladaha samaynta macmacaanka. cadnaan ayaa u warbixisay mid ka mid ah wargeysyada maxalliga ah. duruufta ayaa aad ii saamaysay siiba aniga iyo qoyskayga oo ka kooban 10 qof. ha ahaatee ilaahay mahadiyo waxaan ka qayb qaadanay bandhig shirkadeed aan ku soo bandhignay xirfadeena samaynta macmacaanka. timirta noocyada kala duwan ee ka baxa Deir al-Balax awgii waxaa bandhig ballaaran lagu qabtay magaaladaas. waxaana ka soo qayb galay beeraleyda iyagoo soo bandhigaya hal abuurkooda ku aadan bedelidda timirta, halka dumarku intooda badan ay ku tartamaan in ay soo bandhigaan hal abuurkooda la xiriira wixii ay gacmahooda ku sameeyeen. hase yeeshee had iyo jeer beeraleydu sida ay rajeynayeen ma noqoto. waxaa bilicda quruxda badan dagaal culus ku haya cayayaan baabi'iya boqolaal geed timireed. beeraleyda waxay isku dayeen in ay hantidooda ka badbaadiyaan cadowga iyagoo isticmaalaya farsamooyin kala duwan oo ay ka mid tahay sunta cayayaanka iyo goynta geedaha, balse farsamooyinka xal uma noqon dabargoynta cayayaanka. sidaas darteed daawadii ugu dambeysay ayaa noqotay in gebi ahaanba la gubo geedahaas. taas ayaa horseeday khasaare gaaraya ganacsatada beeraleyda. Kenan waa khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha, wuxuu ka warbixinayaa dhibaatadii soo gaartay ganacsatada iyo beeraleyda reer Falastiin. waxaa jira qaar beeraleyda ka mid ah oo khasaare ka soo gaaray dhibaatadii dhacday. beer walba oo ka mid ah waxaa ku yaal in ku dhow 300 ilaa 400 oo geed oo timireed ah. beertan waxaa ku yaalay 400 oo geed timireed. khasaare weyn ayaa ka dhashay arrinkaas. baaxadda khasaarahana waxaa ku qiyaasi karnaa 20,000 ilaa 30,000 oo diinaar in ay ku burburtay, lacagtaas oo u dhiganta 30 ama 40,000 oo dollar. iyadoo dhibaatooyinkan ay ku xiran yihiin ay haddana dadka reer Falastiin sii wataan ganacsigooda timirta, gaar ahaan rayidka magaalada Deir al-Balax oo iyagu dhabar adayg uga gudbeen mushkiladihii soo waajahayay. shacabka halkan ku nool waxay ku hawlan yihiin ilaalinta astaamahooda ay magaaladani caan ku tahay, oo ay ka mid yihiin 150,000 oo geed timireed. geedahaas oo sanadkan oo keliya soo saartay in ka badan 9,000 oo tan oo timir ah. dhankeena Soomaaliya waxaa ku yaal 100 geed timireed, kuwa oo sanad walba dalagga timirta ka soo go'a. ha yeeshee aan bulshada sidii loo baahnaa u manaafacsan. hase yeeshee waxaa socda dadaalo bulshada loogu buurinayo ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka. Yuusuf Xoosh, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.